madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamuud Silaanyo ayaa socdaal rasmi ah ku yimid Abu Dhabi Imaaraadka Carabta socdaalkan oo ah mid rasmi ah inta uu joogo waxa uu la kulmi doonaa mas'uuliyiinta Imaaraadka Carabta ayuu la kulmi doonaa tallaabadan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku yimid dalka Imaaraadka Carabta waxay ka mid tahay tallaabooyinka diblomaasiyadeed ee madaxweyne Axmed Maxamuud Silaanyo uu doonayo in arinteena amba qadiyadda reer Soomaaliland garnaqsigeega uu cid walba u bandhigo si qadiyadda Soomaaliland ay garawshi caalami ah u hesho waa taata madaxweynuhu u yimid waa taa uu taw meel walba u tagayaa sidoo qarankan u noqon lahaa qaran la aqbalo qaran qadiyadda shacabka reer Soomaaliland ee xaq iyo xuquuqda waxay u leeyihiin in adduunka uu garawshiga ka helo muhiimad weyn bay qaranka u leedahay halkan imaadkeeda madaxweynaha qaranku waa wadan islaam oo wadan aynu walaalanahay waa wadan wax badan inaga tari kara xaq dhaqaale xaq dib u dhis iyo dhinacyo fara badan wax badan inaga tari kara waftigaasi madaxweynaha waxa kamid ahaa oo ku wehelinayay wafti culus weeye waxa ku wehelinayay marwada koowaad qaranka gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha wakiilada waxa kamid ah wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda wasiirka madaxtooyada wasiirka maaliyadda wasiirka beeraha wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta wasiir ku xigeenka caafimaadka iyo afayeenka madaxtooyada muddo dhowr cisho qaadan doonta booqashadani intii dhowr cisho qaadan doonta dhowr ka cisho waftigan Soomaaliland ee halkan jooga madaxweynuhu hogaaminayona waxay arki doonaan mas'uuliyiinta ugu sareysa dalka waxa runtii farxad iyo diilay mahadnaq qabo mudan sidii wacnayd ee karaamada lahayd ee sharafta lahayd ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland loogu soo dhaweeyay Abu Dhabi oo qof la qiimeynayo muxtarima madaxweyne la qiimeynayo sidiisiba loo soo dhaweeyay runtii sharaf bay u tahay shacabka Soomaaliland aad iyo aad ba waftiga iyo madaxweynuhu ugu faraxsan yihiin sida qiimaha badan loo soo dhaweeyay dareen farxad leh ayaa kaga jawaabana arintaasi sida loo soo dhaweeyay madaxweynaha waxaan ka arkaynaa sida airportka loogu qaabilay